waxaa halkaan ku joognaa aqlabiyada golaha deegaanka degmada Boorama oo muddo saaka inay isku keentay kolkay arkeen in la kubsaday sharcigii oo ay dusha lagaga yimiday taasoo muddo gudoomiyay gobolku iyo xukuumadii inay markay iyagu doonayaan ay u wadaan sida iyagu jecel yihiin oo ay ka marorsadaan golaha deegaanka taladiisi golaha deegaanka xeerka loo lambar 23 ismaamulka gobolada iyo degmooyinka tilmaamaya waxa anaga iyo barsaab isku keenaya talabaanu ka dalbanay weeyaan 500 jeerna waa laga dalbaday washika wada waa kii uu qaban waayay ku dhasku ku dilay maxamed xafiiskiisa maaha haday soo gali waayo waan xidhayaan saaka bilays qabaala oo ku yaanu amniga ku sugeynay inuu kula dagaalamayna argagixisada iyo wixii amniga waxyeelaya in golihii deegaanka ee degmada sida horta ay xalaasha loo soo doortay in saaka loo soo diraa way edeb daro waxa weeyaan golaha deegaanka ee degmada uu madax banaan yahay cid la cid toor jargarayn kartana ma jirto madaxweyne kala dirday golaha haday caqabad kugu yihiin kala dir haday culays kugu yihiin madaxweyne laakiin waxa weeyaan sharciga kubsanin baan leenahay wakiilka ku jooga gobolka iyo cidii kale dabada kaga jirtaba waxaanu uga digaynaa oo naan marnaba aqbali doonin inaan waqshaas noqon doono hadii sharciga laga talaabo maanta halkan waxa ku dhan aqlabiyada xildhibaanada golaha deegaanka waxaana isku keentay maanta waa dan sida awalba hore iskugu iman jireen kalfadhigooga ayay iskugu imaneen ma taqaanaa iyo kulanadooda gaarka maantana dantii un baa isku keentay waxaan dhamaantay ka midaysan lahay inuu golaha deegaanku xor yahay maalintuu doonana uu maayirka ridayo maalintuu doonana maayirka uu dooranayo iyaga ay u saarantahay qodobkaasi laakiin wax dhakada lagaga keeno oo la yiraahdo xildhibaanadiisa ay tukaan yihiin hoolka soo galo halkan soo fadhiisto sida yeela taana marnaba yeelmayno xildhibaano xasaanad laga qaadaya beenta magaalada la wadana waxaan bulshada ugu baaqaynaa inay wax ka jira ayna jirin xildhibaanada may soo dooran dawladdu waxa soo dooratay xildhibaanada waxa soo doortay bulshada soo dooratay bulshadii soo dooratay say u soo doontay bay meesha ku joogaan maalintuu xilkoogu dhamaado sida dastuurku yaalon bay meesha ka tagi doonaan xildhibaanadu xildhibaan xasaanad laga qaadayaana ma jirto xildhibaan ma taqaana la xidhayaana ma jirto xildhibaanadu waa xor wax lagu qasbayana ma jiro intaas aan bulshada ugu baaqay inay isdajiyaan beenta iyo boqonboqaandada hebel baa la xidhaya hebel baa la qaadaya xildhibaanadii baa baxsaday la leeyahay inayna jirin taasaan markaan bulshada ugu baaqaynaa waxaanu saakana soo weeraray ciidanka booliiska ee degmada Boorama gobolka Awdal oo barsaab ku wato waxaanu u sheegnay in dalku sharci leeyahay sharcigana aan la ixtiraamo ciidamadu si fiican bay yeeleen wax maxaan ku dhahay aflagaadana nooma geysan wax dhibaatana nooma geysan laakiin barsaabku wuxuu doonuu sameeyay ciddu isagu maxaan ku dhahay soo magacaabayo golaha magacaabayo isaga madax banaan na kuma haysano hadii xukuumaddu soo magacaabayso laakiin golaha in cod maxaan ku dhahay Somaliland dimuqraadi tahay maayirkana lagu rido iyo ku xigeenkaba codna lagaga qaado waqtiga ay timaadeen sifaha sharciga mooshinka ka gudbinina waan ka qaadi doonaa hadda laakiinse sifaha sharci darro ayaa la nagu soo weeraray inta uu manka degmadan u haynin waxa weey golaha waxa loo doortay sharci dastuur ayuu leeyahay waxaan ilaashanayna qodobka loo 20 ee degmoonka iyo gobolada waxa weey anagu golanahay sharci dajin waxa weey kalfadhi anagu aan qabanno mooyane kalfadhi dushul nooga soo yeedhay ma jiro waxaan leenahay ma ogolin wax dushul nooga soo yeedhay si xor ah ayaan anagu dooranaa maayirka si xorna lagu qaadanaa laakiin marna ma aqbali doono wax dushul nooga soo yeedhay waxaan ilaashanaa sharafta iyo karaamada bulshada inoo doorto waxaan laga daayo qafad qalaha korka laga keenayo waxaan leenahay taa hadii laga deen waayo waxa ka baxaya sharciyadii magaaladan halaga day qaska iyo buuqa ay xukuumadda xagga sare ay kaga wado anagu degmadeedan ma ogolin in nabadgelyo darra ka dhacdo anaga ilaashan anaga ka mas'uul degmada waxa weey marka hadii la yiraahdo waxa weey barasaafaday tahay iyo hadii cid kale tahay kama ogolaan doono anaga maanta askar buu la dul keenay in kan barasaaf gobolkay waxa weey dulqaad iyo karaamaan leenahay ayaan ku baajinay halka falka dhicila waxa weey taasina waa sharaf iyo karaamo aan dadka waano hadii laakiin mar dambe laga kaco de wixii ka dhaca de isaga mas'uuliyadda iska le barasaaf gobolka salaamaya golaha deegaanka
waxaan halkan iskugu imanay oon ka midaysannahay inteeda xildhibaan ee halkan joogta dhawaaqa ka soo yeedhay xukuumadda waxa aan leenahay golaha deegaanka ee Boorama waa xor kulli annaga dooranay maayir iyo ku-xigeen annagaana bedeli doona hawsha wada bara saabku Boorama waxaan leenahay hawshaasi waxay ku xidhan tahay gacantayada iyo markii annagu aan ka tashano hawsha waxaan leenahay dib baad ula noqon halkan uga mahad celinaya xildhibaanada golaha deegaanka degmada Boorama oo runtii gartay waajibaadka saaran iyo sharafta ay huwan yihiin iyo mas'uuliyadda ummadooda u hayaan runtii waa wax lagu farxo runtii waxay ilaaliyeen karaamadii gobolka Awdal tii degmada Boorama iyo tii sharciga u lahaayeen xaq u lahaayeen xildhibaanadu ilaaliyeen runtii goluhu ummadda dooratay iyagaana isdoorta si xor iyo xalaalan isku doorta maaha mid qasab halkan ku soo galo oo ku doorta cid la yiraahdo wax dusha nagaga keenana ma aqbalayno dadweynaha degmada ku nool waxaan u sheegaynaa inay isdajiyaan nabadgelyada ilaaliyaan waxa maanta halka laga sameeyay oo bar saabka gobolku ka sameeyayna waa wixii ummaddu kicin iyo abaabul iyo dil iyo nabadgelyo darro bar saabku ka abuuray degmada waxaan u sheegaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxda qaranka ee kalaba inuu ninkaas sharciga ka soo tallaabsaday sharcigu hadduu shaqayn waayena bar saabna ahaan maayo degmadan golaa loo doortay golahaasana xaq u leh inay cidda mas'uuliyadda iyagu dhiibanayaan ma aha xayawaan golo dad wax loo yeedhiyana ma waa dad ilaahay karaameeyay oo ummadani soo dooratay oo degmadana uu soo dooratay iyagaana mas'uuliyaddeeda leh cid qasbi kartaana ma jirto Somaliland sharciga ayaa sareeya madaxweynuhu wuxuu hore u sheegay inuu sharcigu sareeyo maantana sharcigii baa laga soo tallaabsaday madaxweyne waanaad arkaysaa in qasab iyo jujub wax lagu wado marka arintaas waxay keenaysaa kacdoon shacab iyo nabadgelyo darro mas'uuliyaddeedana waxa qaadi doona bar saabka